kadib abaare baasan oo ka dhacay deegaano tiro badan oo ka tirsan gobolada bariga Soomaaliland iyo waxay abaarahaasi toos iyo sidoo kale xanuuno kaga tageen dadka xoolo dhaqatada ah. deegaankan qabri gorid waxa uu ka mid yahay deegaanada hoos yimaada gobolka Togdheer waxaana ka dilaacay xanuunka loo yaqaan shubanka kaasoo 3 qof ay ku geeriyoodeen deegaankaasi halka 3 ruux oo kale waqti xadirkani haya xanuunkani. odayaashii wax garadka kala duwan ee deegaanadan ayaa TV-ga Star uga warbixiyay xaaladda caafimaad ee dadka deegaankaasi waxaana tilmaameen inay tabayaan gurmadkii dawladda Soomaaliland ay u fidin lahayd dadka waxaana sidoo kale odayaashani mahadnaq ballaaran ay u soo jeediyeen dadka deegaankaasi ka soo jeeda dhalasho ahaan kuwaas oo gurmado u fidiyay dadka deegaankaasi xanuunadani ku dhufteen. ugu horeyn xanuunka meeshan ka dilaacay deegaankan ee xanuunka shubanbiyoodka kaasoo muddo imika ilaa 7 cisho ka jiray xanuunka ka jiray muddo 7 waxa ku geeriyooday 3 qof oo dumar ah ilaahay u naxariisto islaam waxa kaloo xanuunka ma laga daweeyay ama imika gacanta lagu hayaa dad ilaa 3 qof gaadhay ilaahayna dadkaasi way xanuunsanayaan oo xanuunkoodu iska soo dabay wala soo dadguranay kuwa ilaahay waxaanu ka baryay ilaahay inuu caafiyo qayladhaanta waanu diray xanuunku sidoo ku yimi waqti biyaalaha markaa jirtay meydadka xitaa wax lagu meedhayo yoomka la adigu yoomka way noo yimaadeen xaq caafimaadka 2 tiino ahaayo 2 habeenare joogayeen biya laakiin wax dambe gurmada kama arag muddada 7 uu ka jiray dadka daaweyntoodii iyo wax qabadkoodii iyo gurmad ilaahay baa leh waxa gacanta ku hayay dadka kale ee heliyada ee ay ka kooban yihiin dadka qurba jooga dadka gobolada jooga ganacsatada dadka guurtida saaxiib laqliga kuwa dadkooda heliyada ee la dhashay u gurmanayay wax la qabanayay sidoo kale sida iyaba markay xaalad kale meel ku timaado ama loola yimaado ugu gurman jiray way ku mahadsan yihiin ta waxaan leenahay hadii dee wax qabad iyo gurmad ilaahay baa leh macnaha taakuleyn iyo caafimaad ka dee wax kala qabadkiisa ay tahay dee waa ka sugaynaa waana uga baahan dawladuna waa la sheegaa wadada bay martaay maalinta doorashada ma aragna garanaysa doorashada maanta dhacayso ay ma dawladda aragna gabigeedaba maalin kale ma aragno meel marayso waxaanu leenahay war ummadda waxa loo qabto hadaa dawladda tiin ummadda u kaalaya ummadda eega kii xanuunsanaya eega kii caafimaad qaba eega wixii uu qabay kale u qabta meesha lagu dhaado qabri gorod waxa weeyaan dadku ilaahay baa qadaray iskale abaar baa ku dhacday dabeedna dadku uu naashifay xoolihii iyo wixii cuni jiray buu waayay calooshu dabadeedna way hadeerba xogma iyo naashiftay dabeed caloosha dadku uu shubmay uu socday sida daraadeed wuxuu waayay dadku xoolihii cuni jiray iyo nafaqadii wixii ahaa ayuu waayay ilaahay baa qadarka iskale dabeed dadka dad doora ayaa shubmay wax dhaqaatiiraho markaa meesha joogtay oo hadeerba xogmaayo wax ka qabataana ma jirin ilaahay un baa hadeerba xogmaayo dadka daweeyay xogaba naloo keenay hadeerba xogmaayo meeshu ma laha rug caafimaad iyo meel hadeerba xogmaayo waxa noo dawaahaanu ilaahay ku barina waa quraankiisaan ku barina xogaa daweyna baa loo keenay faleemooyin iyo hadeerba xogmaayo waxyaalo noocaasa alaanadan wali dadku si yar buu soo dhacdhacaa dadka waxa dhintay oo goobtan ku dhintay 3 qof oo mid dhexda ku sii dhintay inta barca loo qaaday labana lagu aasay dad ilaa sodoneeyo ahi way soo dhaceen halkan magaalada joogno xanuun baad ka dhacay magaalada Balli Gorod meesha la yiraahdo waxa weeye anagu maana arag wasaaradda caafimaad iyo meel ay wax ka bixinayaan iyo meel ay joogaan toona maana arag wax dawlad ku saabsan waxaan aragnay xog hayaha dawladda hoose oo gaarigii soo bixiyay dadkuna waa xanuunsanayaa waxa weey dawladii waanu ka cabanayna dawladii waliba wasaaradda caafimaadka ka cabanayna waxa laala waxay noo tartay iyo wax dadka xanuunku nimika ku habsaday ay marayaan toona maanan arag waxaan joognaa magaalada qabri gorod oo ilaa iyo 30 bisha intii uu ka soo dhacay xanuunkan aan gurmad ugu jiray anaga ka soo gurmanay magaalada Burco tirada imika uu maraya ee xanuun ku dhacay 34 ilaa 35 way 3 qof waa dhimatay ilaahay fadligiisa subhanahu wa ta'ala ilaahay baa xogay kulli nafsi daaqatul mawd baa leeyahay wax kasta sabab laga dhigay laakiin sababta ku dhintay waa shubankaasu sida daraadeed markii shubankan bilaabmay warkan maqalay qayladhaantii aan geynay gobolka 2 tiim ayaa markii hore ku kulmay ilaa iyo maalinka maanta tiinka dib uma soo noqon kadib dadkii haddana sidii uu soo kordhay markuu marayay waxaan sameynay markaa qayladhaantii aan dib u sameynay ma suurto gelin caafimaadka gobolku ama maamulka gobolku ama degmo ha noqotay ma suurto gelin markaa inay gurmadama dib u diraan taa markii ay dhacday waxaan qayladhaan u diray dadkii deegaanka ahaa ee ganacsatada iyo dadkii wax garadka ahaa ayaan qayladhaan u diray
dadkaas waxay ku soo deeqeen runtii khayr Allah siiyo miisaadka xasanaadka Allah subhanahu wa ta'ala hagu kordhiyo magaalada malaha rug caafimaad malaha magaranaysa meel dadka la geeyo oo magaranaysa sidii iskuulkii oo kale meel dadka la dhigi karo meel lagu tala galay magaranaysa deedanta guud ah ee la dhigi lahaa malaha sadaqadaha iyo dhulkaas la dhigay markaas sidoo kale waxay ugu soo deeqeen raashinkii dadka loo karin lahaa oo xogaayana waa ugu soo deeqeen cid alle iyo magaranaysa wax maamul sheegta ama mid dawli ah noqdo ama mid caafimaad ha noqdo ama heer gobol ama heer qaran ha noqoto wax alla iyo waxaan ilaa hadda ka hayna ma jirto balaa dawada uu sheegayo magaranaysa si duwa caafimaadku leeyahay waan geenina malaha way noo soo socotaa laakiin mid anaga soo gaadhay maaha hadaanu cid xameel ah ugu dhiibin oo jirto waxaas magaranaysa waxaan ka codsanaynaa dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala caafimaadka Ilaahay baa keena cudurka Ilaahay baa keena subhanahu wa ta'ala mid walba xaq Ilaahay buu ka yimaada laakiin dadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala mas'uuliyadda saaray si aan horaba u sheegnay ee maamulka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka uu kala xisaabtamaya إلهي وكل حسابته سبحانه وتعالى ولا مسؤولية بيوهيان مسؤولية أيوهيان إلهي سبحانه وتعالى ويدين وحملنا إن هذا كان مباشر وحي أبا هانتهاي إن للصمير رق عافمات oo dadka lagu ururiyo si aanay magaranaysa xanuunkii magaranaysa halkiisa loogu magaranaysa loogu daweeyo to kala dhibaatada kale taagan waxa weeyaan qofkii markuu yar lanaado meeshii magaranaysa cunto kuma haysto cid kale ku haysa ma jirto qofku markuu yar lanaado markiiba uu noqonaya markuu noqdana gurigii xaafadii buu ku noqonaya intii kala dabatana waa talaalay cidii wax ka dhiibatay iyo cidii hada ka dhiibatay iyo cidii gurmad ka dhiibatay intaba waxaan leenahay jazaakallahu khayran jazaa ilaahi subhanahu wa ta'ala miisaadka xasanaadka dadkooda tabaalaysan dhibaataysan ilaahina waxaanu ka barina subhanahu wa ta'ala dhibaatayna ilaahay subhanahu wa ta'ala naxariistii janno ka waraabiyo dadkani uu soo riday xanuunka shuban biyoodka ayaan haysan rug caafimaad oo lagu dabiibo xaaladooda oo ku taala deegaankani qabri garood waxaana farxaan dholeere oo ka tirsan odayaasha deegaankaasi u gaarsiiyay deeq daawo ah oo xaaladooda lagu dabiibi doono isku soo wada xooriyo xaaladani ka taagan deegaankani qabri garood ayaa u baahan samata bixin iyo sidoo kale gargaar bini'aadantinimo ay si weyn isaga xil saaraan qaybaha kala duwan ee bulshada iyo xukuumadda Soomaaliland wa Khalid Bakayle fogaanara ka xorta Star TV burco